waxaan rabaa inaan qiso yar oo hore oo ku taxalluqda maalmaha xorriyadda 26 Juun iyo 1 Luulyo wixii aan ka arki jiray inaan ka sheego labada maalmood markaan joogno waqooyi 26 Juun xoog badan baa loo yeeli jiray sharaf badan baa aad loogu sharfi jiray halkaana waa laga xusi jiray koonfureed laakiin 1 Luulyo ayaa ka sii xoog badnayd oo waxaan ka imaan jirnay gobolada sida waqtiga 76 75 ilaa waqtiyaalkaas waxaan soo joognay 1 Luulyo iyadoo looga yimaado gobolada oo shaqaalaha iyo ardayda iyo la keeno oo habeenkaas oo dhan aan u soo jeedno oo aan wadada intaan nimaadno xuska weynaynta maalintaas aan habeenka iyo maalinta iyo subaxa maritaankeeda iyo waxaas oo dhan يعني سياد وشرف بدن إلا حفلتها وكسي الدنبية يعني ولا شرف جري كود اللوليو وحلو شرف جري سيادية هذا أيضا الله حرمين أيو حرية الصومالية سمعتك الصومالية الله بدأ حفلته ضيّلة هاي كود اللوليو لكن لحي لا تنكتشون أيضا وقوي وقت الحرية هاي سيدا الصوت خلتها أيضا لو شرف جري أيضا كل شيء حوق بين عوقويها لو حوق جري لحي لا تنكتشون koonfurtuna sidaasay ahayd laakiin 1 Luulyo waxay ahayd laba munaasabadood isu imaatinkii labada qaybood labada Soomaaliyeed isu yimid iyo maalintaas oo ayaduna ahayd maalinta xorriyadda ay qaatay koonfur oo caalamkeedu uu madax bannaanaaday marka intaas waan soo joogay